ku noolaanshaha waddan shisheeye waxay noqon kartaa nolol adag, laakiin abaalmarin leh. 6 faa'iidooyin ee ay leedahay ku noolaanshaha dibadda waxaa ka mid ah: 1. La qabsiga dhaqan cusub. Ku noolaanshaha waddan shisheeye waxay kuu oggolaanaysaa inaad la kulanto qaab nololeed ka duwan kii aad taqaanay, inaad barato dhaqamo cusub, fahamtana aragti ka duwan taadii hore. 2. Kobaca shakhsi ahaaneed. Ku noolaanshaha dibadda waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso xirfado cusub, inaad noqoto qof madax bannaan, iyo inaad si weyn u fahamto naftaada. 3. Fursadaha shaqo. Ku noolaanshaha dibadda waxay furi kartaa fursado shaqo oo cusub, waxayna ku siin kartaa khibrad caalami ah oo qiimo leh oo faa'iido u leh xirfadaada. 4. Barashada luqadda. Ku noolaanshaha waddan shisheeye waxay ku siinaysaa fursad aad ku barato luqad cusub oo aad horumariso xirfadahaaga luqadda. 5. Isku xirka bulsho. Ku noolaanshaha dibadda waxay kuu oggolaanaysaa inaad la kulanto dad ka kala yimid adduunka oo dhan, ballaarinta shabakadaada, iyo inaad samayso xiriir caalami ah. 6. Fursadaha safarka. Ku noolaanshaha waddan shisheeye waxay ku siin kartaa fursad aad ku safarto, aad u sahamiso qaybaha kala duwan ee dalka iyo gobolka ku xeeran. Si kastaba ha ahaatee, ku noolaanshaha waddan shisheeye waxaad kala kulmi kartaa caqabado sida kalinimo ama cidlo. Ka fogaanshaha qoyska iyo asxaabta way kugu adkaan kartaa, waxayna kuu sababi kartaa cidlo iyo xanuuno nafsi ah. 2. Kala duwanaansho dhaqameed. Waxaa laga yaabaa inay jiraan kala duwanaansho dhaqameed oo ay adkaan karto in la fahmo ama aad la qabsato. 4. Caqabadaha maaliyadeed. Ku noolaanshaha waddan shisheeye waxay noqon kartaa mid qaali ah, waxaana laga yaabaa inaad u baahato inaad miisaaniyad u samayso si aad u hubsato inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku daboosho kharashaadkaaga. Waad ku mahadsantahay dhegaysigaaga. Fadlan nagu caawin inaad sheer garayso, like-na aad saarto muuqaalka.